saraaya alqudus ayaa iyagana maanta waxay sheegeen inay qabteen mid ka mid ah diyaaradaha droniska loo yaqaano quadcopterska sida markaasi aljazeera laga soo xiganayo. assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan. sida warbaahinta Israa'iil laf ahaantooda ay soo warinayaan, ciidamada Israa'iil ayaa maanta dharbaxyadii ugu xumeyd kala kulmay dhanka Xisbullah. waxaa la soo warinayaa in ciidamada Israa'iil maanta laga yaabiyey oo dagaalyahanada Xisbullah dagaal toos ah ama foolka fool ay isaga hor yimaadeen. dagaalkaas oo dib u soo xusuusiyey sida xitaa warbaahinta Israa'iil ay sheegayso welibana ka darnaa dagaalkii 2006 Israa'iil ay ku gashay gudaha wadankaas Lubnaan. marka dagaal aad u xoogan, madaafiic aad u xoogan ay labada dhinac isdhaafsanayeen. sidaasi oo kalena dagaalyahanada Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil ayaa la soo warinayaa in si toos ah isaga hor yimaadeen. dhanka kale markaan eegno marinka Gaza waxaa ka socda dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya iska caabinta Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil, gaar ahaan waqooyiga magaalada Gaza, Jabaaliya sida la socotaan maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Israa'iil halkaasi waxay sameeyeen hareereen oo dadkii ku noolaa xitaa inay guryahoodii ka baxaan ay u diideen, iyagoo go'aansaday in dadkaasi halkaasi ay ku xasuuqaan. maanta iska caabinta Falastiiniyiinta waxay sameeyeen muuqaal ka yaabiyey ciidamada Israa'iil, iyagoo waxaa la arkayay diyaaradaha droniska ay ku dhex sameeyeen gudaha magaalada Gaza oo muddada halka sano dagaalku uu ku socdo diyaaradaasi ay hagayaan. kadibna ciidamada Israa'iil oo meel wada fadhiya, yacni hal mar diyaaradaasi dhexda ka gelinaya, welibana diyaaradii ay qarxayso. muuqaalkaas guud ahaan halkan idinku soo gudbin karo, laakiin qayb yar oo yacni kamid ah ayaan idin soo gudbinayaa, bal aan isla daawano. diyaaradii waa ay baxday, waad u jeedaan hawada ayay ku jirtaa hadda, muddo ayay socotaa. saad u jeedaan diyaaradii waxay geli doontaa yacni meel buur ah. ay sii socotaa, waad soo dhawaysan kartaa, idinka soo dhawaysta insha Allah. kadibna buurtaas aad u jeedaan ayay dhexda ka geli doontaa, halkaas ayay isku qarxi doontaa. muuqaalka waad arki kartaan ayaan filayaa. marka diyaaraddu way gelaysaa, qaraxeedii ayaad meel yar ka arki doontaan insha Allah. wataasaan marka xaaladda dagaalka magaalada Gaza ka socda, gaar ahaan Jabaaliya, dagaalka sida foolka isaga hor imaanayaan iska caabinta Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil, waxaa la soo warinayaa inay tahay heerkii ugu darnaa oo xitaa yacni muddadii dagaalku uu bilowday yacni heer ka xun inuu hadda uu marayo. dhanka kale oofaarkii Netanyahu ayaa waxa uu qorsheynayaa sida hadda la soo warinayo in raashinka gurmadka gudaha magaalada Gaza galaya sidii u joojin lahaa, gaar ahaan dhanka waqooyiga raashinkii gurmadka galayay ee dhanka Israa'iil ka soo galayay inuu joojiyo, isagoo oo yoolkiisa uu yahay in dadka ku nool waqooyiga magaalada Gaza mar kale gaajo ay u dhintaan, macluul ay u dhintaan, welibana yacni caalamka oo dhan marqaati uu ka yahay in dadkaas halkaas ay ku geeriyoodaan. dhanka kale saraaya alqudus ayaa iyagana maanta waxay sheegeen inay qabteen mid ka mid ah diyaaradaha droniska loo yaqaano quadcopterska sida markaasi aljazeera laga soo xiganayo. diyaaradahan quadcopterska yacni muddadii dagaalku uu bilowday, ciidamada Israa'iil si xoogan ayay u adeegsanayeen, xaafad walba ay dul maraysaa, iyagoo markaasi fiirinaya dhaqdhaqaaqa dadka halkaas waxay sameynayaan, kadibna u basaasaya diyaaradaha droniska ee hawada ku jira ee wax duqeeya. marka mid ka mid ah diyaaradahaasi ayay sheegeen maanta inay qabteen saraaya alqudus. dhanka kale gobolka waxaa laga dareemayaa cabsi aad u xoogan. waxaa labadii maalmood ugu dambeysay la arkayay Mareykanka oo Israa'iil u soo daabulaya nidaamka difaaca iyo hub aad u tiro badan. marka waxaa laga cabsi qabaa in Israa'iil ay weerar ay ku qaado saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda dhanka Iiraan, iyadoo aan la ogeyn halka markaasi Israa'iil ay qorsheynayso inay weerar ay ku qaado. waxaan la soconaa maalmihii ugu dambeeyay wadamada Khaliijka oo aad uga cabsanayay in Israa'iil ay duqeyso yacni xarumaha shidaalka wadankaas Iiraan, iyagoo markaasi ku sababeeyay in ay dhici karto haddii Iiraan kaalmaheeda shidaalka ama ceelasheeda shidaalka la duqeeyo in wadamadan Khaliijka iyagana dhibaato ay soo gaarayso, gaar ahaan wadanka Sacuudiga iyo Qatar iyo sidaas oo kale Imaaraadka. waxayna ka codsadeen Washington in Israa'iil ay ka baaqsato ama inaysan marnaba duqeynin xarumaha shidaalka wadankaas Iiraan. marka maalmihii ugu dambeeyay waxaa jirtay gobolkan cabsi aad u xoogan oo laga qabo in Israa'iil ay duqeyso xarumo muhiim u ah Iiraan. dhanka kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa waxa uu sheegay in gobolka ay ka jiraan dhaqdhaqaaq Mareykanka uu hogaaminayo. afhayeenka ayaa waxa uu sheegay wixii gobolkan ka dhaca
in maraykanka isaga uu mas-uuliyadeeda qaadi doono. iiraan inaysan doonayn in dagaalka gobolka uu ku baaho, laakiin iiraan haddii lasoo weeraro yacni ay diyaar u tahay inay isdifaacdo. marka afhayeenka wuxuu sheegay in yacni cuquubad xun ay ka dhalan doonto, sidaasi oo kalena iiraan ay dareemayso in gobolka la keenay ciidamo badan oo maraykanka ah oo la doonayo in dagaalkan ay qayb ay ka qaataan. marka wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay haddii ciidamo badan oo maraykanka gobolka la keenay ujeedadoodu inay tahay in dagaalka ay qayb ay ka noqdaan, sidaas darteedna wixii ka dhaca oo ciidamo badan ugu geeriyooda maraykanka in maraykanka laf ahaantiisa mas-uuliyaddaas uu qaadi doono, gobolkana arin xun ay ka dhici doonto. waa sida markaasi afhayeenka uu sheegay. dhanka kale wargeys ka soo baxay Israa'iil oo lagu magacaabayo Daud Ahronoth ayaa waxa uu qoray in Israa'iil 53 milyan oo dollarka maraykanka ay qasaartay 1 Oktoobar, yacni markii Iiraan ay weerarka gantaalada ay ku soo qaaday dhanka Israa'iil. marka wargeyskan wuxuu leeyahay 53 milyan oo dollarka maraykanka ayaynu qasaarnay kadib markii Iiraan ay duqaysay xarumo badan oo muhiim u ahaa ciidamada Israa'iil oo ay ka mid ahayd xaruntii Moosaadka Israa'iil, sidaas oo kale ay duqaysay diyaaradihii F-35 oo la sheegay ilaa ay 20 gaaraya in halkaas ay ku waxyeeloobeen. sidaas oo kalena Iiraan ay markaas gantaaladeeda ku dhaceen gudaha magaalada Gaza, gaar ahaan xadka loo yaqaan Natsarim. marka wargeysku wuxuu leeyahay 53 milyan oo dollarka maraykanka ayaynu qasaarnay markii yacni Iiraan ay weerarka nagu soo qaaday. run ahaantii weli waxaa la dareemayaa marka in Israa'iil ay diyaar u tahay ama ay u fafakanayso dhanka Iiraan. ilaa ay hadda waxay kala kulmi doontana lama yaqaan, laakiin Iiraan waxay wacd ay ku martay in haddii dhankeeda tilaabo loo soo qaado wixii ugu xumaa gobolkan uu ka dhici doono. dhanka kale ciidamada qaramada midoobeed ka jooga wadankaas Lubnaan ee loo yaqaan UNIFIL ayaa waxay sheegeen in 2 kaare oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen in xaruntooda ay yimaadeen kadibna albaabkii ay jabiyeen muddo 45 daqiiqana ay xaruntaasi ay ku sugnaayeen. ciidamada Israa'iil ayaa waxa la sheegayaa in xadgudub ay ka sameeyeen maalmihii ugu dambeeyay xarumaha ay degan yihiin qaramada midoobeed. maanta waxaa hadlay oofaarkii Netanyahu wuxuuna amar degdeg uu ku bixiyay in qaramada midoobeed ay isaga baxaan wadankaas Lubnaan, halisna ay u yihiin ciidamada Israa'iil, sidaasi oo kalena markaas xarumahooda ay gambaad ay ka dhiganayaan Xisbullah. marka waxaa cad Israa'iil in yacni wixii lagu magacaabi jiray qaramada midoobeed iyo xuquuqda aadanaha iyo wixii la midka ah in dagaaladan ka socdo gudaha magaalada Gaza ee dhanka Lubnaan oo dhan ay markaasi ay baabi'inayso. marka cabsida ugu badan ee ilaa ay hadda la qabo waxay tahay goorma ay Israa'iil weerarkan ay qaadi doontaa. insha Allah wixii arrinkan ka soo kordhana halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa. ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culuumta shareecada. isqoristu way socotaa, fadlan hore u gaadh. wixii faahfaahina nagala soo xidhiidh +252 63477 956.